بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله. waxaan joogaa gaalkacyo khaasatan xaafada suuqa bartankiisa yani laba dhinaca xaafada galmudug iyo puntlandba ay isugu yimaadaan ku kala adeegtaan ma sha Allah wata nabadu qiimahaas ay leedahay ilaahay baan ku mahadinaynaa nabada aan ku soo gaalkacyo ilaahay nagu siiyay labada reer meesha degan oo yani galmudug iyo puntlandba waxaan kaloo ilaahay markii waad mahad leh kadibna waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadka halka ku nool iyo odayaashooda iyo xadaradkooda iyo maamuladooda labadaba ka shaqeeya nabadda iyo walaalnimada iyo in meel lagu wada noolaado lagu wada xamaasho nabaddu qiimaha leedahay ogaaday wax walba khayrka ka shaqowda shaqeeyay khaasatan anigu Cabdilmajiid Balli Busle ayaan ahay waxaana ka yimid Balli Busle dhulkaas xagga maartay galmudug siiba magaalooyinka la yiraahdo gaalkacyo wixii ka xiga maartay xagga xeebta iyo badda ka xiga ودرسك كنا خالها سعد خاصة درس كنا هي الشيخ خالي در يعني كود كنا هي نبض في عمبان وهي سنة إلهي مهدي إلهنا واحد كرر شيء لنا نبض أصير مفزع يا شيخ خاصة واحد مهد علينا ولا سعد ومهد علينا وأنا جي ولا لما المدوين كانوا كود النولين وقال حي مدو كود النول هي نبض سعد والشقيين يا خاصة عيدنا كتكون أفكار ولا ورد نعبا إليه هنا كشقيين نبض يوال كود الشقية هذا ما ومهد علينا سبحان الله سبحانه وتعالى ما لنا هاي هذه كعب المريو خير كاس فرها بدن iyo walaalnimada iyo xoolaha sidoo kale walaalaha saacad way su'aalinaa geela iyo soo baxsada xaqooda soo galay xaqayga soo galay labadaba waa kala cushanaa iyaguna waa noo su'aaliyaan hatta iska daayir baadihu oo isu tagaan meel bay xukuuda waa u tala galay marka waxa weeyaan nabadda ka jira gobolka mudug oo dadka wada degan ka wada shaqeeyaan nabadoonada iyo ismada iyo dhammaan dadka labada dhinac ee degan aad iyo aad baa Ilaahay ugu bahadinayna subhanahu wa ta'ala nabad baa naas looga leh nabad baa qiimo leh Soomaalnimo iyo walaalnimo iyo muslimiin naga badan ina wadamada sheegay qaxooti ku noqono inaguna wadankeena isku dilaa waa doqonnimo waxa la ascaanay aagada ka dhacaya waa doqonnimo waxa meel badan ka dhacaya koonfurta ka dhacaya waa doqonnimo sarafku wuxuu ku jiraa walaalnimada dad muslimiin wada kulligeen oo wada shahaadanaya walaalnimada iyo khayrka iyo nabadda ilaahayna siiyay ilaahay uga mahad celinayna subhanahu wa ta'ala waxaana leenahay walaalaha qaasatan galmudug degan khayr badan Allah siiyo Allah ay barakeeyo nabadaas aynu ka wada shaqeyno saaga shaqeynayna aynu u wada wadno وانا مالهم بان واسغسي فيعنانayna sharka iyo waxa sukan dirayana aynu ka digtoonaano sidoo kale qoliyaha ay khaasatan Puntland waxaan ugu iyagana ka codsanayna heshiisyada hadda ay gaareen oo ku saabsan dadka qofkii qof dilay in la dilo inaysan dhinaca Puntland ku ekaan loo gudbiyo dhinaca walaalaha iyagana galmudug oo iyagana sidoo kale aan dhammaan wada saxiixano qofkii qof dilay in la dilo meel kasta ha joogay in arrinka la wada ilaa Soomaaliland wada gaarsiiyo شريعة الإسلام كقفكي قف دل لو قدر لو بعد السنة الخارجية قفكي دبقي سمعنا نبت مع المريو ضد كان ولا هذان وعم بنك الهلال قبل يرد الرد قالمه يشاركي سيدان ماذا ما قلت لنا سامر كثير سبق قال دان أمريكا بركة ارتقال كعيا هذا وقت ورسي هانشدي كور هذيك الثلاثة waxaan ku talinayaa amniga gaalkacyood boqolkiiba boqol waa fiican yahay wax isku haya inna Allah ka dhigay ma jiraan hada wax dhacdaa waa iska imaanayaan waa xukun alle laakiin wax siyaasada iyo wax nabadgelyo la'aan iyo wax dhib oo dalka ka jira ma jiraan labada dhinacba xagga Puntland iyo xagga galmudugba dhib kale dhaxtaale ma jiro cid kale wax isku haysan ma jiro wala wada gacsanaya garbaha la ishaystaa waa la isku soo dhawaaday halka aad deganta dukaanka cid walba ku timahay meesha hadda makhaayad baa ka furan wax ka cabay eelay iyo jareer iyo biyamaal iyo qubays iyo sacad iyo daarood nooc kasta ha noqdee shaaha la soo yimaada waa la sheekaysaa qofo meesha dantu leeyahay u dhaqaaqa idinkana waxaan idinka codsanayaa degmada magaalada Busle ilaa Jariima iyo degmada waxa waa laga baxay qabiil warkii waa la daayay waa la nacay ilaahay xaqiisa laga nacay qabiil oo qabyaaladda ilaahay xaqiisa laga nacay dadku inuu iskarabsado oo iskanacsado oo isdhex maro oo qof kasta meeshu doono oo wax ka qabsado baa maslaxadu ku jira galmudug maxaa leedahay magaalada galmudug waxaan leeyahay soo dhawaada anigu waxaan ay tiin abtiyaal hooyaday waa sacad waxaan leeyahay waa reer sharaf hooyaday waa reer cali nabcaale waxaan idinku soo dhaweynaa magaalada balbusle degmada bajariiban idinkoo haddee nala leh Soomaaliya wax ma kala ahan nabadda wax lagu yahay waxaan soo maray waa ogtihiin ilaahay hayna ka nabad iyo dawladnimo
إلهي هنا كده في دمي كان كله آمين آمين إلهي دمي كان كله هي كده آمين هذا أنا مصلحات أرقنه أساس وناك كده وناك نسوني ما وجزاك الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا تاريخ وحوية تاريخ ما أنت وحوية سجال كبير سبتمبر 2000 صدح يا الله تك يا وأوجه توصل